sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo aad wada garanaysaan ayaa waxaa la weydiiyay su'aal ah culimada Soomaaliyeed ee diinta cilmiga u leh maxay talada dalka uga mid noqon waayeen oo madaxtinimada dalka u qaban waayeen oo ay iskugu soo sharaxi la yihiin su'aashaas ayaa la weydiiyay laakiin sheekha muusan iswaalinba oo ma garanaysa si yar oo fudud ayuu uga jawaabay waxaan rabaa in ay la dhageysataan muuqaalkaana inaad sii gudbisaan ayaan jeclaan lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo daawasho wacan ninka siyaasiga waddanka maamula tol buu leeyahay meesha saaray oo ku maamulo laakiin wadaadku tol ma leh wadaadku mabda kitaab buu sidaa Soomaali kitaab ma uga shay baarlamaankoodii intuu isu tagay iyagoo 123 nina ayaa laba nin diiday nina aamusay 120 ninba waxay isku raaceen inaan ilaahay kitaabkiisa waxba lagu xukumi karin dastuurka iminka la yiraahdo waxaynu isku waafaqayno kii 61 baan loo noqonay 61 kuna waa ka wadaadku diin buu wadaa marka Soomaali maalinta ay diin aqbasho way helaysaa mid muslima ku xukuma wadaadku ma baahna mid muslima ku xukuma way helaysaa inta aanay diin ogolayna wadaadku haduu tii Faransiga meesha la tagayna wasla halkii haday diin tahayna tolkiin wali ma yaqbalin assalaamu alaykum ولي سوت هاي ما أنا شري. انتو يسوت هاي بعد هالعض السيسين